degdeg wararkii ugu dambeeyay ku saabsan ciyaaryahanka Newcastle Alexander Isak iyo Newcastle iyo Liverpool oo wartooda meel fiican marayso iyo xaaladaha kale ee suuqa kala iibsiga iyo falanqeynta guud ee ciyaartii dhaxmartay Newcastle iyo Liverpool waxyaabihii laga bartay ayaa muuqaalkan ku eegi doonaa kusoo dhawaada ciyaaraha maanta TV waa walaalkiin Maxamed Daacad fadlan hadii channelka cusub tahay fadlan waxaan ka codsanayaa muuqaalka like noo saar subscribe noo saaro waana ku mahadsantahay hadii ku bilaan qodobkeena uu door kuroon ciyaaryahankan istaraatiijiga u dhil kooxda Newcastle United ee Alexander Isak oo go'aan kama dambeys ah gaaray mustaqbalkiisa kadib turan uu la qaatay mulkiilaha Newcastle United weeryahanka reer Sweden Alexander Isak ayaa si cad u muujiyay rabitaankiisa ah inuu ku tago Newcastle United oo uu ku biiro Liverpool ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga sida ay qortay The Telegraph. Isak ayaa isniintii gurigiisa kula kulmay wakiilo ka socda ciyaartii ka hor ayuu wakiilo kala kulmay wakiilo ka socda Public Investment Fund iyo milkiilaha kooxda Chamio Robian si loogu wada hadlo mustaqbalkiisa. Bishii hore Newcastle ayaa diiday dalab taariikhi ah oo dhan 110 milyan ay soo gudbisay kooxda Liverpool taas oo ka careysiisay ciyaaryahanka 25 jirkan ah. kadibna Isak ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in kooxda ay jabisay ballanqaadyo horey isaga ku adkaystay in kalsoonidii uu kooxda ku qabay ay luntay. Haatan marka Isak wuxuu markale ku celiyay in uusan dooneynin inuu sii joogo St James Park isagoo doonaya inuu ku biiro Liverpool ka hor inta aan suuqa xirmin. Wararka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu sii wato diidmada ciyaaraha si uu qasbo kooxda inay aqbasho rabitaankiisa ama bixitaankiisa. Liverpool ayaa la rumaysan yahay inay diyaar u tahay dalab labaad hase yeeshee waxay sugayaan green light ama ogolaansho ka imaan doona gudiga maamulka ee kooxda Newcastle United tour inta aanan gudbin wax dalab ah. balse sida warar hooseed ay sheegeen ayaa Liverpool xataa diyaar u tahay inay dhiibto 130 milyan iyo hadii lagu daro tunooyinka 140 milyan laakiin balse sida loo maleynay Newcastle lacagtaas ka badan ay rabtaa sida wararka hoose laga helayo. sidaas Liverpool waxay rabtaa 150 milyan kooxda Newcastle waxay rabtaa 150 milyan in miiska loo saaro laakiin balse Liverpool iyadana 150 milyan inay si fudud ku dhiibtaan ma rabto. balse insha Allah wararkaas ayaan ku eegaynay arintii xaalada Isak wixii kala ka soo cusboonaayo muuqaalada kale ay ku daawan doontiin. Suuqa Falanqeynta Ciyaaraha ciyaartii Liverpool iyo Newcastle dhaxmartay kooxda Newcastle United ayaa martigelisay kooxda Champions League Premier League guuleystay sanadkii tagay kooxda Liverpool halka ciyaarta aad u kuleed balse kooxda Liverpool ayaa gool hormartay 1-0 markii la hormartay ayaa nasiib wanaag waxa ciyaarta qaybtii hore ee wax ka dhiman waxa oo qaatay roose qaatay waxa timid ciyaaryahankan ee weerarka u dhigay Newcastle Jordan ayaa qalad xun ku galay Van Dijk taasoo markii yellow taarka yellowga la siiyay balse far ayaa hadalka soo yeeray taasoo sababtay inuu garsooraha uu daawdo ciyaarta ku celistay qaladkiisii Jordan taasoo markii la fiiriyay dhaawac halis u geysan jirtay ama serious foul ahay qalad xun ayuu ahay taasoo keentay in yellow laga bedelo oo kaar guud la siiyo taasoo fursad siisay kooxda Liverpool ayaa mar kale fursad kala abuurtay si goolkeeda labaad u dhashato saasoo kooxda Newcastle United iyana ma niijibin inkastoo ciyaaryahanada ee xoogan ee dhaadheer ay badanaa ku furayeen fursado abuurayeen fursadahaas oo ah buloomaha dhaadheer ee goolka lagu soo tuuray goolka Liverpool ayaa sababtay in kabtanka kooxda Newcastle United Doromino uu madax ku dhaliyo oo taasoo oo dabaaldeg xoogan sameeyay oo taageerayaasha kumanaan kun ay tonton iyo dhowr kun oo dhaafay Newcastle ayaa kor u banaan baxay taasoo sababtay inay dhiirigelin ka helaan ciyaaryahanada taasoo mar kale fursad kala abuureen fursadahaas oo ay dhasheen qaybtii labaad ee 66 markay maraysay taasoo u sahashay inay fursado kale sii helaan inkastoo aysan dhalinin balse ugu dambeys Liverpool ayaa daqiiqadii u dambeysay ee 90 daqiiqadaha dheeri lagu daray ayaa ciyaarta wax yar ka dhiman hal daqiiqo ka dhiman ay goolka guusha waxa u dhaliyay ciyaaryahanka da'da yar ee mustaqbalka ee 17 euro ayaa taasoo u dhaliyay u sahashay inay xilli dambe Endoma
Roma ayaa gool xilli dambe u dhaliyay kooxda Liverpool taasoo Liverpool u saashay inay 3-2 ay ku garaacdo dhigeeda Newcastle United midasoo la filnayo in Liverpool ay nasiibka saaciiday taasoo Newcastle United ay kalsooni ay ka helay maadaama ay 10 qofood ay ku ciyaareen garoonka taasoo marka sababtay inay Newcastle United ay dhiirigelin ka hesho haddana ciyaarta ay asaas ku soo ilaatay Newcastle 2 Liverpool 3 sidoo kale insha Allah waxaan eegi doonaa muuqaalada kale aan soo sameyn doono wararkii u dambeeyay suuqa iibsiga haddii intaan soo gaarto walaal waxaan ka codsanahay muuqaalka like noo saar subscribe noo saaro haddaad noo heen waana ku maasatay muuqaalka noo sheegay